haddana imika soo qaadana hadaba perpetual inventory systemkiisii hore systemkii hore waa soo baratay kaa waa soo fahantay marka imika kii joogtada ahaa ama continue inventory systemka oo loo xifaan sida lagu xisaabinayo FIFA marka loo xisaabinayo waa wax keep track inventory cost at amount and the date kumba ku xukuma maalin walba waa xisaabinaysa marka imika inventory gain 80 unit bay ahayd waa isla example keeni horone 80 unit ma ahayd 80 unit sales ma ku soo kordhay iyo in yaro dheeraad ma ku soo kordhay inventory gain markay 80 unit ahayd in 10 noqono waa 800 haddana waxaan soo iibsanay alaab January 6 keeni waa continue isticmaalayna 220 unit 300 waxaan iib sameynay alaabtii waan iibinay sales ma sameynay 800 iyo 200 bay noqotay 8 iyo 200 oo unit ayaan iibinay oo midna 10 aan siinay midna 12.5 aan wuxuu kaga duwan yahay perpetual inventory marka cost of the goods sold raadinaysid waa intaad iibisay weeyaan inta sales ka cost of the goods sold already marka inta aan sameeyno sale hadii wixii sale aad haysatid oo dhan isku soo geenaysaa total sales kaas oo ku meel 3,300 waa maxay cost of the goods sold weeyaan cost of the goods sold marka saasay u sameeysid bishii dhamaato January 10 isla maalintii weeyaan waxaad sameynaysaa balance ba ku sameeysaa inventory ba calculation ku sameeysaa marka January balance waxaad soo qoraysaa intana soo kala jaraysaa marka 200 sideeta kan inuu soo geysid 200 waa 300 waxaad ka jaraysaa sideetan aad iibsid waa 220 waxaad ka jaraysaa 200 waxa ku soo haray 20 unit 20 kan wuxuu ka soo haray xagga 200 ka soo haray waa 12.5 marka lagu dhufo 200 iyo 50 bay noqonaysaa halkaasna marka laba inta soo balance gareyn maxaa continue loo leeyahay mar walba la xidhaya sababtaas weeyaan mar walba loo xidhay marka isla markiiba inventory-gani waa 250 inagoo haysana inventory-gani iyo cost of the goods sold 3,300 waxaan sameynay January 5 bishii 5 hadana alaab kale soo iibsanay inagu 200 bay soo iibsanay 200 waxaan soo saarnay min 14 waxay noqonaysaa 2,800 bay noqonaysaa markii saa 2,000 aan alaabta isla markaa soo iibsanay hadaba isla markiiba hadana waxaan xisaabinay cost of the goods sold waa constant bay noqonaysaa way activity taaganta way ma wax seelamaynu sameyn markaas waxa soo xisaabinaysaa isla markiiba waxa xisaabinaysaa isla January 25 kii inventory-ga ku diyaarka ee aad taalayba xisaabinaysaa maxay noqonaysaa 20 unit 12.5 kugu taagna iyo 200 unit soo iibsaday 40.5 ka waxa ku noqonaysaa 3,050 kii bay noqonaysaa oo maxay inventory intaas la gelinayaa balance sheet ka lagu qorqoranaya xagan kalena waxa cost of goods sold doonaysidna waxay ku la mid tahay intaad iibisay oo sales ka ah oo la isku soo geeyay oo cost of goods sold noqonaya sasal marka ay noqonaysaa ay kala duwan tahay cost of goods sold waxa iibisay marka perpetual isticmaalaysid hal mar walba balance gaad ku sameeyay inventory-gana tan waxa lagu qorqoranayaa inventory waxa ku qorqoranaysaa balance sheet cost of goods sold waxa ku qorqoranaysaa income statement marka liifa isticmaalaysidna waxa isla sidii bay noqonaysaa waxa isbedelaya qoraal sales kaaga isbedelaya wax kale ma isbedelayaan FIFA marka isticmaashid waxa weeyaan marka waxa soo purchase gareysanay inventory-gani 80 purchase 220 sales ma hadaba ka sameeyay 220 hadaba sameeyay hadana 60 isla tabti sales kaaga ma isku soo geynaysaa marka sales kaaga ku dhufatid price kaaga 2,700 bay noqotay iyo 60 kan lagu dhuftay 1,600 bay noqotay intaas waxay ku noqonaysaa cost of the goods sold 3,300 kaas isla markii wada haystaa cost of the goods sold marka isla markaas aad samaysid cost of the goods sold waxa aad diyaar gareynaysaa inaad xisaabisid inventory-gaaga maxaad ku xisaabaysaa isla maalintii weeyaan bishii January balance tankeygii waxaad ku xisaabaysaa intaan oo dhan baa soo kala jaraysaa intii aad haysatay inventory soo gadatay waxaad ka jaraysaa intaad soo gadatay intaad gaday 80 waxaad u geynaysaa 200 300 baa noqon 300 waxaad ka jaraysaa 280 baa ku haray 80 waxaad ka jaraysaa 60 waxa ku haray 20 iyo 10 kiimaad ku dhufanaysaa 200 baa ka ku haray hadda markii hore 200 ka tanayd imika waxa haray 200 isla markii 200 aan haysano oo inventory waxaan sameeynay isla bishii weeyaan January 25 kiina hadaan alaab kale soo iibsanay 200 unit kale soo iibsanay oo aan siisanay 14.05 soo iibsanay oo kula mid ah 2,800 kula mid ah markaas isla markiiba hadana waxa xisaabinaysaa isla habeenimidkiiba inventory-ga waxa xisaabinaysaa oo ma ximsa 2,020 lagu dhuftay 10 oo 200 ah iyo 200 oo lagu dhuftay 14 oo 2,800 ah totalkoodu waa 3,000 oo 3,000 oo ah inventory cost of the goods sold waxa kula mid tahay inta iibisay waa intaas oo taaytaas oo soo noqonayaan cost of the goods sold is the total of sales on the June wixii aad iibisay total of sales of the bishaas June aad iibisay weeyaan markan impacting of the cash flow assumption under perpetual inventory saameynta ku yeelanaysa perpetual inventory ama continue inventory system kiisina wax sidan oo kale average FIFO and LIFO average ku mar walba waa dhexdhexaad isagu mana badna mana yara
oo labadan dhexdooda ayuu ku dhacaa waxa ugu badan marka la yimaado costiga amba costiga goods oo dhiga waxa ugu badan amba income statement ee kordhinaya LIFO majhuulka ayaa ugu badan marka price marka la yiraahdo inventory-ga waxa ugu badan FIFA ayaa ugu badan saas marka comparison kala isku barbar dhigayo ka ugu badan ka ugu badan FIFA iyo LIFO marka la yiraahdo perpetual inventory waxa ugu badan hadii inventory tahay waxa ugu badan 350 noqonaysa waxa ugu badan inventory-ga FIFA ugu badan marka costiga tahay waxa ugu badan LIFO waxaan soo qaadanaynaa detail exam tusaale kale oo faahfaahsan oo aan soo qaadanaynaa sida ardayda dad badan ay u fahmaan oo casharka ay si fiican u fahmaan oo waliba aan eegayno tusaalaha sida loo waliba balance sheet-kiina oo kor income statement ama balance sheet-kii kor garanayna hadhaagayna hore ka soo qaad hadaba illustration assume that chemical company-gaas ayaa ah beginning inventory leh ayaa beginning inventory-giisu waxay tahay uu leeyahay 12 per unit buu leeyahay 4000 oo unit buu leeyahay oo mid ka yahay 12 unit waxaana uu iibiyay alaabna soo iibsaday alaabna uu galay alaabna uu iibiyay haraagii physical content of inventory marka haraagii la soo xisaabiyay inventory-ga la soo saaray la soo xisaabiyay waxay ahayd 500 unit ayaa at the ending of the year marka lagu raahdo oo dhamaadka sanadkiisii maadaama la yiri waa periodical inventory system buu isticmaalaya maadaama lagu leeyahay iyadoo lagu sheegay waa inaad garataa marka systemka qoraalka akhriyo haddii continue lagu raadana waxa weeyaan wax perpetual-ki weeyaan markaan soo xisaabino waxayna siinaya daatada balayna siiyay daatada marka la siiyay waxa weeyaan January 4000 unit oo waa beginning inventory-geeni 4000 waa beginning inventory-geeni oo lagu dhuftay 12 unit waa beginning inventory-geeni waa January 1-kii 6000 oo unit oo 16 waa intaas 10,000 bay noqotay 3,000 11,000 iyo 5,000 marka la isticmaalayo ayaan soo saarnaa waxaan iibinay 3,000 oo unit 22,000 each iyo 6,000 oo unit oo 22,000 each aan sameynay ayaan iibinay marka waxaad xisaabisaa perpetual inventory adoo isticmaalaya periodical weeyaan waxa isticmaalaysaa FIFA iyo LIFO iyo FSOSMAN markaan soo diyaar gareyno FIFA haddaan soo xisaabino FIFA markaan soo xisaabino markii periodical tahay waxaan soo qaadanaa waxay la mid tahay formuladeeni hore ama casharkeeni tusaaleeni hore ayay la mid tahay marka waxaan soo qaadanaysaa sida ugu fudud aan soo diyaar gareynay tusaalahan weeyaan beginning inventory plus net purchase soo qaadanaysaa is equal cost of the goods available for sale is equal ending inventory plus cost of the goods sold labadaas la isku soo geeyo waxa kula mid tahay labadana la isku soo geeyo ending inventory-gan 4,000 times 12 packet each oo ah beginning inventory-ga xagga ugu sareysa beginning inventory-ga oo xagga inoogu qoray xagga inoogu maqan fahmi ha ku dawaqin waxa xagga sare ku qoray waa kan xagga soo geliyay marka qaybtaas beginning inventory-ga soo qaadanay ah net purchase-kuna waa intan purchase-kuna oo dhan la soo wada qaatay waa intan aan iibinay intan labadan la soo qaatay waa intan purchase-ka lagu soo sameeyay weeyaan marka intaas marka labadan 40,000 lagu dhufto 12 waxay ku siinaysaa 48,000 plus net purchase-kan waa 2,000 waxay ka yimaadeen 8,000 oo lagu dhuftay 17 oo loo geeyay 6,000 oo lagu dhuftay 16 oo waxay ku noqonaysaa 2,830 bay noqonaysaa marka inta aad soo saartid intaas ay waxa kula mid noqonaysaa labadaba la isku geeyay cost of the goods sold and available for sale oo ah labadan kan loo geeyay intaas noqonaysa oo ka imanaya marka la sakiisa la faafiyo intana sida intaas la soo qaatay beginning inventory oo intana sidina la soo qaatay totalka wuxuu noqonayaa 2,280 kun buu noqonayaa haddaba muhiimadu kaliya tahay doonaya ee aan lagu siinin inta waa isku wada mid saddexda matuurba waa isku wada mid waxa aanad mar walba haysan ee aad laga rabaa inaad soo xisaabiso waa ending inventory iyo cost of the goods sold marka waxaad ku xisaabinaysaa ending inventory-gan xagee ka timid waa actual quantity ugu dambeeyay ee dhamaadka waxaad soo qaadanaysaa waxaad eeganaysaa intii lagu siiyay waa imisa halkan waxa lagu yiri physical content at the ending of inventory 500 unit ayaa ku yaala oo diyaar ah ending inventory-gan wata marka 500 ee unit waxaad ku dhufanaysaa marka la isticmaalayo FIFO ee la isticmaalayo FIFO oo ah periodical-ka waxa laga imanaya xagga hoose laga imanaya xagga sarna wixii hore la siibinay xagga marka ending inventory la xisaabinay xagga la imanay marka 8,000 ugu dambeysay 80 waxaan ka jaraynaa 5,000 baa ka jarayna waxaan ku noqonaysaa halkan 3,000 ugu haraysa marka 5,000 waxaa ku dhufanaysaa 17 waxay ku noqonaysaa ending inventory bay ku noqonaysaa marka halkaas ka timid 5,000 oo 5,000 oo lagu dhuftay 17 halkaas ka timid oo waa 85 marka halka ending inventory kan soo saarnay tan systemka ama formuladan waxay ku faa'iideynaysaa si fudud oo xisaabaysa marka ending inventory-ga soo saartid unit-kaas soo saartid waxaad soo saaraysaa cost of the goods sold si aad ugu geysid ay labadan isku mid noqonayaan hadda isu geysid inta walba wuxuu siinaya 280 markaas waxaad soo qaadaysaa beginning inventory-gani waa soo qaadanaysaa intan ma soo qaadanaysaa cost of the goods sold available minus waxay ending inventory ay ahayd formulada ku siinaysa cost of the goods sold concept-ga hana ama casharadii hore ku soo barnay tusaaleeyeen hore marka beginning inventory-gani waa soo qaadanaysaa
purchasing kan waa soo qaadanaysaa 800 waxaad ka jaraysaa 5000 baad ka jaraysaa 8000 waxaad ka jaraysaa 5000 waxa ku haray maxay 3000 soo qaadaysaa marka inta la isku soo geeyo waxa ku noqonaysaa 1900 iyo 190 bay noqonaysaa saasay ku noqonaysaa sida ugu fudud loo xisaabinayo weeyaan waa soo qaadanaysaa 8000 baad ka jaraysaa 5000 halka ugu dambayso intaas ma soo gudbisay marka income statement-gina waxaad gelinaysaa sanad gelinaysaa income statement-ga marka hore tusaale ma soo qaadan in waa la gelinayo ma lahayn imika laakiin tusaalahan waxaan ku daraynaa in la soo qaaday net sale kaas saa ku yahay marka cost of the goods sold digaagi intaan soo qaadanaysaa xara balance-yada ugu dambeeya intaan soo hoos ma soo qaadanaysid 4800 beginning inventory 4800 net purchase kinta 223 iyo cost of goods available 4200 waxaad ka shaqeysaa in inventory-ga inaa 850 waxaa ku soo baxaysa cost of the goods sold 195 laga soo baxday gross profit kaas ku siinaysa oo ah 190,000 marka saas ay xisaabinaysaa oo income statement-ga aad u gelinaysaa FIFA marka isticmaalsid periodicalka amba markastaba labada midba marka income statement waxa inventory marka soo saartid umad gelinaysaa balance sheet-ka cost of goods sold waxa gelinaysaa income statement-ga markaan isticmaalayno average weight kana formuladii baan isticmaalayna cost of the goods available for sale kan isticmaalayna oo ah 280 iyo waxaan u qiimeynaa divided by unit qiimeyn qiimeynaa total unit available by for sale banoonaya 4000 loo qeybiyay 6000 oo purchase iyo 8000 oo purchase waxaan noqonaysaa 18 marka 200 marka 280 ka loo qaybiyo intan waxa ku siinaysaa 15.555 ku siinaysaa tusaalahan hadaan soo qaadano calculator-kan soo furano calculator-kan soo qaadano waxa noqonaysaa imisa 280,000 oo 0 iska daa divided by 18 0 is la mid ah 3 weeyaan marka 15.555 ka soo noqonaysaa marka 55 kana kama tagaysa sidiisa aad ku soo qaadanaysaa markaas per unit wada soo saaray marka per unit ka soo saartay waxa ku xisaabinaysaa in inventory-ga imisa yahay inta ku hadhay 5,000 baad ku dhufanaysaa unit ka soo saartay waxa ku noqonaysaa 777 cost of the goods sold waxaad ku soo saaraysaa 13 waxa ka timid marka inta total unit purchase ga isku soo geysay imisa 18 waxa ka jaraysaa 5,000 ee inventory ka jaraysaa marka ka jirta waxa ku saaraya 13 ku saaraya waxaad ku dhufanaysaa right kibadiyana ku dhufanaysaa right ki per unit ka soo saarnay marka waxa ku siinaysaa cost of the goods sold iyadna sidii leeyahay ayaad u gelinaysaa cost of the goods sold oo 220 iyo gross profit ku siinaysaa marka labada kala jaro sale marka laga jaro inventory-ga waxa ku siinaysaa haraagi oo inta inventory-ga ay noqonaysaa haraagi marka leaf isticmaalaysidna iyadna waa sidii la mid ah ay noqonaysaa inkastoo waxay ku kala duwanaysaa xisaabinta cost of the inventory-gaas iyo cost of the goods sold ay kala duwanayaan marka purchase-ka intiisii hore soo qaadan intan hore waa isku wada mid marka inventory-ga xisaabinaysid inventory-ga perpetual-ka waxa laga soo bilaabi tiray xagga hoose xagga hoose marka laga soo bilaabay inventory-ga 500 baa marka 500 aad soo qaadanaysaa waxa weeyaan soo qaadanaysaa waxa weeyaan xagga sare laga soo bilaabay yani sore xagga marka hore 500 aan ka soo qaadan xagga marka imika xagga sare laga soo bilaabay marka xagga sare ka soo bilaabay inventory beriyan maxay ahayd 4,000 baa 4,012 ku dhufanaysaa maxaa ku haray 1,000 baa ku haray 1,000kiina halkan aad ka goynaysaa 16 aad ku dhufanaysaa maxay la noqonaysaa 16 inta marka isku soo geysay maxay ku noqonaysaa 64,000 oo inventory ay ku noqonaysaa inventory halkaas ay ku noqotay iyadoo inventory cost of the goods sold marka keenaysid iyadna waxa iyadoo inta laga jaray waxay noqonaysaa marka 500 oo iyaduna waxay ka timid taawa sideeda soo qaadanaysaa iyadana waxa ka timid xagga hoose ka imanaysaa oo marka cost of the goods sold la xisaabinayna marka aad leaf la isticmaalay ee aad inventory-ga xagga hore ka soo qaadatid cost of the goods sold xisaabinaysid xagga hoose ka soo qaadanaysid sida chantuska ka muuqatay graafka marka 8,000 sideeda soo qaadanaysaa 8,000 maxaa ka dhiman waxa ka dhiman marka inventory-ga soo qaadatid 8,000 waxa sideeda soo qaadatay marka halkan imisa waa 6,000 waxa ka jaraysaa 1,000 ka jaraysaa 1,000 maxaa ku haray 5,000 marka 8,000 iyo 5,000 saas ku noqotay oo ku midna 2,600 iyo 8,000 oo cost of the goods sold marka inta labadaasna sidii oo kala income statement iyagana u soo gelinaysaa oo net sales wuxuu noqonayaa 3,480 noqonayaa beginning inventory-gana 4,800 saas noqonayaa xisaabtii sidii la mid ah gross profit kuna wuxuu noqonayaa sidoo la kala jaray sale kaas oo laga jaray cost of the goods sold inventory-gana sidaas ayaa loo gelinayaa saameynta saad u gelinaysaa inventory-ga soo xisaabisa soo saartay ayaa gelinaysaa oo ku gelinaysaa balance sheet-ka halkaas ka soo gabagabeynaa tutorial-keeni maanta aan ku soo gabagabeynay barashada inventory-ga ahayd sida loo xisaabiyo FIFA iyo UEFA fadlan hadii ku cusub tahay share gare. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.